shabaab ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada muqdisho maanta kadib markii kooxda shabaab ay weerareen xarumo wasaaradeed oo dowladda soomaaliya gudaha magaalada muqdisho sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle. ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyooto 5 ka mid ah yihiin kooxda weerarka soo qaaday al-shabaab. dadka geeriyooday waxaa ku jira wasiirka hoggaanka shaqada arrimaha bulshada xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla. aamin ambalaas waxay sheegeen goobta ay ka qaadeen 10 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan. qaraxa koobaad waxaa loo adeegsaday gaari wuxuuna ka dhacay albaabka bari ee wasaaradda shaqada ee dhanka fiish taraafiko kadibna rag hubeysan ayaa gudaha u galay xarunta wasaaradda kadibna waxaa dhacay qarax labaad oo la aaminsan inuu ahaa gaariga ay ka soo degeen ragga hubeysan. dhismaha wasaaradda waxaa wada deganaa wasaaradda shaqada iyo howlaha guud waxaana inta badan shaqaalaha labada wasaarad laga badbaadiyey gudaha dhismaha waxaana laga saaray daaqadaha iyo qaybaha dambe ee wasaaradda. dad goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA inay arkayeen shaqaalaha oo laga soo daadgureynayay daaqadaha dhismaha guriga uu ka koobnaa. mid ka mid ah dadka ka soo badbaaday weerarka oo ku sugnaa gudaha wasaaradda ayaa VOA kaga warramay sida uu dhaceen. waxa waaye waxaan ka soo booday dabaqa 3 diyaana ah qaraxa wuxuu nagu dhacay anagoo ku jirno hawl maalmeedkeena shaqo hal mar waxaan ugu soo daatay daaqadihii iyo albaabadii waxaana soo galay uuro madow waa soo orodnay anagoo dhinaca albaabka u soo orodnay kadib albaabkii aan ka cadsanay inaan ka baxno oo ay rag naga hor imaadaan sida caadada ee markii meel la qarxiyo waxa waaye qarax keliya kuma eko waxa waaye gudaha loo galaa marka waxaan isfahanay haddaan ka badbaadeen qaraxi waxaa jiri karta in gudaha lasoo galo. waan gartay marka gudaha ku laabanay dabaq 3 diyaana daaqad jabsanay daaqadii aan jabinay oo shabaq ahayd ayaa kasoo boodnay waxaan ku dhacanay qaybta guud ee gobolka banaadir ingad oo marka dabaq 3 diyaana dushiisa ka soo boodeen 3 diyaana dushiisa ka soo boodnay waxaan ku faadahaydeen adiga ilaa 10 qof ahaan. waan gartay marka dadka waa isqaybiyeen kuwa waqti daaqada ka baxeen daaqadii aan jabsanay. waan gartay marka waxaan galnay qaybta guud kadib gabar qaybta kushiinka joogtay oo ciidanka wax u karaysaa waxay noo tilmaamtay meel laga bixi karo daaqada oo qurac ku aadaya quracii aan dhex galnay meesha ka sii baxnay jiigada dhex galno xaafad islaamana dhex galnay xabadii waxbaan qabsaday. waan gartay haddaan wax dib u laabto markii ay al-shabaab gudaha soo galayeen adigu xagee fadhiday maxaase wuxuu kuugu horreey aragtay ahayd? xafiiskayga fadhiyay shaqaan ku jiray computer aan ku qoray warbixin wasaaradda aan diyaarinay kadib hal mar waxaan arkay agaasimayaas la shaqeynayay oo ku soo dhacday muraayadda daaqada iyo uuro soo gashay kadib anoo agaasimihii fiirina orod bilaabay si aan waa soo orodnay laakiin waa nabad qabaa asagina waa fiican yahay anigana waa nabad qabaa dad badan kor ka soo booday oo away qaarkood dabarka ka jabay daarna lugaha iyo gacmaha ka jabay marka alxamdulilah hadda waan nabad qabnaa. yaa dhintay oo taqaan ama dhaawac oo taqaan oo labada wasaaradood tan howlaha guud ee joogtay iyo shaqada shaqaalahaba hadda ma sheegi karo laakiin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xagga dhaawaca iyo dhimashada dhinacaas oo badnaa oo dhinaca qaraxa uu ka yimid dhinacaas oo ahaa waa isku dhegan lahay labada wasaarad oo isku dhegan yihiin. waan gartay bal sidee bay ahay jawigu 3 dabaqaad ka booday daruufaas adagaad martay banaankaad u soo baxday haddana qarax kale la kulantay sidee ahayd? waa anaga waxaan soo waan lugeeyay adiga waxaan lugeynayay muddo 20 daqiiqo kadib aan bajaaj helnay bajaajtana oo dhinacaas idigaas kala magaalada marayno hornayna xaafadda kor ka soo galno ayaa waxaan ugu dhacay qarax baabuurna daba socdaa qarxay ilaa amarkiis bajaajtaan ka bax aan ka boodnay ayadoo socoto xaafadda islaamiyeed aan galnay waa dhulnay xitaa waana la tilmaamay marka dambe magaalada muqdisho gudaheeda ku dhulnay. waan gartay muqdisho aad ku joogtaa ma markii kuugu horeyso aad la kulanto jahawareerkan ba? wallahi waa arki jiray qaraxyada waa arki jiray laakiin weli qarax meel aan joogo oo ka dhacay kana igu horeeyay. waan gartay in laga boodo 3 dabaq dusheedu ay adag tahay waa meel fog go'aankaas ay ku gaarteen. wallahi naftu waxa waaye ayada go'aanka markaas meesha ku badbaadaysa ayada ku sheegayso daaqada xitaa wax shaki ma keenan ku jabsana daaqada adag oo
أصلاً أنا بتفكر دور قبنا سكيمو قدسنا مركا نفتا كنت مامس مركا سوكلا wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ayaa ku taala goob aad loo ilaaliyo waxaana ku dhagan dhismaha xarunta taliska guud ee booliska gobolka banaadir iyo goobo kale oo la ilaaliyo dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin weerarka khasaaraha ka dhashay iyo sida ay ugu suura gashay al-shabaab inay soo gaaraan goobtaasi muqdisho maanta waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan oo magaalada meelo kala duwan ah Abdul Qaadir Okey